kulan wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta walwal qodobada ugu waaweynna waxaa qayb ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo kulan degdeg ka yeeshay xaaladda dalka Soomaaliya hay'adda FAO oo ka digtay ayax xorle oo ku soo wajahan Soomaaliya banaanbax looga soo horjeedo dhagxaantii qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho laga qaaday oo kuwa kale la dhigay oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho cudurka COVID-19 oo haleelay wiil uu dhalay madaxweynaha Mareykanka diyaarado waday dhaawacyada ciidamada dawladda Afghanistan oo isku dhacay faahfaahin ayaan idinkaga haynaa diyaaradahaasi isku dhacay qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin hayna ayaa daawadayaal daawan doontaan ku soo dhawaada warkaasi oo intaas ka faahfaahsan aan ku bilowno golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa maanta oo khamiis ah oo taariikhdu ku beegan tahay 15 bisha Oktoobar 2020 waxa ay shir degdeg ka yeesheen warbixin laga gudbiyay Soomaaliya warbixinta oo ay soo diyaariyeen 6 khubaro fadhigoodu yahay caasimadda Kenya ee Nairobi ayaa waajibaadkoodu yahay dabagalka dhacdooyinka Soomaaliya ayaa ku saabsan nidaamka maaliyadda Soomaaliya iyo dhaqaalaha ay al-shabaab helaan waxaana khubarada ay warbixintan diyaariyay uu fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaana tirada khubaradan warbixintan diyaariyay tiradooda lagu sheegay in ay tahay 6 qabiir kuwaas oo waajibaadkoodu yahay in ay dabagal ku sameeyaan isku dhexmilanka al-shabaab iyo nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya wargeyska New York Times ayaa maalmo ka hor daabacay warbixin sheegaysay in al-shabaab ay heshay hab cusub oo ay malaayiinka dollarka Mareykanka ah kaga samayso gudaha Soomaaliya sidoo kale wargeyska ayaa sheegay in al-shabaab ay lacag badan ka sameeyaan jidgooyooyinka iyo canshuuraha ay ka qaadaan ganacsatada Soomaalida ah muddadii u dhaxaysay December 2019 ilaa Agoosto 2020 oo sanadkan aynu ku guda jirnaa ayaa al-shabaab waxay gacanta ku dhigeen 13 milyan oo dollar waxaana warbixinta lagu sheegay in 128 rasiid lagu sameeyay baaritaano kuwaas oo dhammaantood cadeynaya macaamilitaanka al-shabaab ay la leeyihiin ganacsatada dalka ka jira oo ay ugu horeeyaan bangiyada iyo ganacsiyo badan oo ay maalgashadeen dagaalyahanada al-shabaab kuwaas oo ay ka qaadaan lacago dheeraad ah dagaalyahanada al-shabaab ayaa wali waxa ay ka dagaalamaan qaybo ka mid ah gobolada dalka dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtaa in ay dhawaan dalka ka saari doonto dagaalyahanada al-shabaab balse warkaasi ayaa noqday mid aan meeshiisa laga sii qaadin oo wali dagaalyahanada al-shabaab ay dadka qaarkood ka qaadaan lacag warbixintan ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in dagaalyahanada al-shabaab ay bishii u soo xarooto malaayiin dollar oo ka badan tan dawladda u soo xaroota sida khubarada ay sheegeen shirkan laga yeelanaya arrimaha dhaqaalaha al-shabaab ayaana waxa uu ku soo aadayaa xilli dagaalyahanada al-shabaab ay weli ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya hay'adda FAO ee qaramada midoobe u qaabilsan beeraha iyo cunnada ayaa ka digtay ayax xorle oo Soomaaliya ku soo wajahan xafiiska hay'adda FAO ee Soomaaliya ayaa sheegay in ayax ka imaanaya dhanka badda cas uu ku fool leeyahay Soomaaliya gaar ahaan gobolada bari ayaxa ayaa FAO tilmaantay in uu ka soo guuray dhanka dalka Yemen waxaana saameyntiisa ay noqon doontaa mid xoog leh sida ay sheegtay hay'adda inkastoo dagaal lagula jiro ayaxa haddana waxa ay hay'addu sheegtay in arrintu cuslaan karto haddii ayaxaasi geediga ah uu Soomaaliya saldhigto ayaxa ka yimid dhanka Itoobiya oo dhulka beeraha iyo daaqsiga diiray ayaa lagu arkay maamulka Somaliland sidoo kale qayb ka mid ah Puntland Galmudug ayuu weerar ku haya waxaana dhici karta in uu u gudbo dhanka gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya isagoona baaba xoogan geysan kara dhinaca kale banaanbax looga soo horjeedo xirnaanshaha wadooyinka ayaa waxa uu maanta ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya boqolaal dadweyne oo u badan kuwa ku shaqeeya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan BL-ka ayaa maanta banaanbax ka dhigay wadada warshadaha gaar ahaan iskuusyada SOS
Ex Control iyo nawaaxiga suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho. Dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in loo furo wadooyinka maalmo ka hor dhagxaanta ay dhigtay dowladda Soomaaliya. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha banaanbaxa ayaa sheegay in culays weyn ay wajahayaan isla markaana arrintan ay dhibaato badan ku qabaan wadooyinka horta leh ay dowladdu xirtay. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maalmo ka hor shaaca ka qaaday in la furay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho ee dhagxaanta oo ku xirnaayeen, hase yeeshee ma jiraan weli gaadiid ka gudbi kara wadooyinka dhawaan dhagxaanta laga qaaday ee ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ka qaaday. Dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaana canshuur bixiyaal ku dhibaataysan wadooyinka magaalada Muqdisho. Wiil u dhalay madaxweynaha dalka Mareykanka oo 14 sano jir ah ayaa laga helay cudurka dilaaga ee coronavirus, balse sida ay sheegtay marwada koowaad ee dalka Mareykanka, wiilkaasi oo lagu magacaabo Brown ayaa cudurka haatan ka bogsaday. Melania ayaa sheegtay in ay aad ugu cabsatay xaaladda Brown kadib markii laga helay cudurka dilaaga ee COVID-19, balse waxaa intaasi ku dartay in nasiib wanaagu yahay wiil da'yar, sidaas awgeedna aysan ka muuqan astaamihii cudurkaasi. Madaxweynaha dalka Mareykanka iyo xaaskiisa Melania ayuu hore cudurkan u haleelay, balse haatan way ay ka bogsadeen cudurka dilaaga ee coronavirus. Trump ayaa markii dambe sheegay in wiilkiisa Brown uu xanuunkani hayay muddo aad u yar isla markaana uu ka bogsaday, maadaama uu yiri difaaciisa jirka aad buu u wanaagsan yahay. waxaana uu intaasi ku daray in wiilkiisu uu tusaale fiican u yahay carruurta kale ee dalkaasi Mareykanka iyo sida ay adkaysi ugu yeelan karaan cudurkaasi coronavirus. sidaas awgeedna ay tahay in iskoolada dalka dib loo furo sida ugu dhaqsiyaha badan. arrintaasi ayaa waxa aad uga soo horjeestay ururka midowga macallimiinta dalkaasi Mareykanka, kuwa oo ku doodaya in ay suuragal tahay in macallimiin badan ay qaadaan cudurka dilaaga ee coronavirus. xog ururin ay samaysay 3 isbuuc ka hor doorashada dalkaasi ayaa lagu ogaaday in madaxweynaha Trump uu taageer ahaan ka hooseeyo ninka la tartamaya ee lagu magacaabo Joe. Melania Trump ayaa dhankeeda sheegtay in wiilkeeda laga helay cudurkaasi muddo haatan laga joogo 2 isbuuc, balse markii dambe uu ka bogsaday oo baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in uusan haatan qabin cudurkaasi sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins. cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan dalkaasi Mareykanka u soo ritay in ka badan 7.8 milyan oo qof, halka ay u dhinteen dad lagu qiyaasay 216,000 oo qof oo cudurkaasi u dhintay. ugu dambeyntii daawadayaal 2 diyaaradood oo siday dhaawacyada ciidanka Afghanistan ayaa isku dhacay, waxaana la sheegay in 2 diyaaradood ee isku dhacay oo ay ahaayeen ciidamada Afghanistan oo ay sideen ciidamo ku dhaawacmay dagaalka ka socda koonfurta gobolka lagu magacaabo Helmand, waxaana ku dhintay ugu yaraan 9 qof. dadka shilkaasi diyaaradeed ku dhintay waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidamada cirka Afghanistan ee aadka u tababaran. shilkaasi oo Arbacadii gelinkii hore ka dhacay degmada lagu magacaabo Nawa ayaa la sheegay in ay sababtay cilad farsamo. deegaanka ay diyaaraduhu isku duqeeyeen maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday dagaal culus oo u dhaxeeya ururka Taliban iyo ciidamada dawladda Afghanistan oo gacan ka helaya diyaaradaha dagaalka Mareykanka. ururka Taliban ayaa ka dagaalamaya deegaano ku dhow magaalada Lashkar oo hore ay uga qabsadeen hal degmo. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta Walwal xilligan waa naga intaa. fadlan haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh, siina share garee si waxyaabaha halkan soo gelino ay u soo gaaraan saaxiibadaada. mahadsanid.